السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada walaalaha ku xiran kanaalka ogaalka dunida. qisadan waxay dhacday muddo fog. waxaa jiray nin Allah subxaanahu wa ta'ala aad uga cabsan jiray kana mida awliyada Ilaahay. habeenada kamida wuxuu riyo ku arkay amariye ugu yimid Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oo ku yiri dariskaaga hebel ugu bishaaree in uu yahay rafiiqayga ama midka saaxiibka igula ah jannada. sheekhi aroortii si degdega ayuu u soo kacay. wuxuu aad ugu faraxsanaa inuu riyada ku arkay nabiyullaahi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. sidoo kalena wuu la yaabanaa wixii loo sheegay ee ahaa in la yiri dariskaaga gaarsii inuu yahay rafiiqayga jannada. ninkani sheekha ah diinta aad buu u garanaya axkaamta iyo waliba fiqiga. ninkan la yiri u bishaareyna wuxuu ahaa nin iska ganacsada ah oo badeecadiisa iska iibsada. markii uu u yimid ayuu yiri dariskayga sharafta badanow waxaan bishaaro kaga wadaa rasuulkeennii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ninkii aad u farxay wuxuu yiri bishaaro iga timid xagga nabiga sallallahu alayhi wa sallam. ilaahow adaa mahad iska leh. ninkii ayaa yiri ii sheeg bishaarada aad iga wado xagga nabiga sallallahu alayhi wa sallam. laakiin ninkii sheekha wuxuu yiri maya wallahi kuma sheegaya bishaaradaasi ilaa aad ii sheegto waxa aad heerkaasi ku gaartay jeer aad darajo aad u weyn Ilaahay subxaanahu wa ta'ala agtiisa ka gaartay oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu riyada ugu tusiyay nabiyullaahi Muhammad oo kuugu bishaareynaya khayr. ninkii loo bishaareynayay ee ganacsadaha ahaa waa uu diiday inuu wax sheego. laakiin sheekhii ayaa muddo badan ku celceliyay oo ku yiri ii sheeg Ilaah baan kugu dhaariyay qisadaada. kadibna waxa uu yiri waayahay waan kuu sheegayaa laakiin waxaan jeclaa inay ahaato mid u dhaxaysa oo ku xafidan aniga iyo rabbigay. muddo ka hor waxaan doonay in aan ku guursado wadadii ama sunnadii nabiga sallallahu alayhi wa sallam. waxaana helay gabar u qalanta markaasi inaan guursado. waxaan ka doontay reerkoodii kadibna waa la ii dhisay. muddo bil kadib ah waxaan arkay ama gabadhii aan ku arkay shay la yaab leh. waxaan arkay caloosheeda oo soo weynaatay. waxaan isweydiiyey tolow ma uur bay hore ka qaaday. haddana waxaan isiri uur hal bil calooshu intaan ku noqonayso ma jiree. caloosheedii ayaa soo weynaanaysay muddada ka dambaysa. waxaan sugayay 5 bilood. waxay ahayd midaan guriga ka bixin si aanu dadku u arkin caloosheeda weyn ama uurkan ay leedahay oo ay ka cabsanaysay inay ku fadeexowdo ama dadku ay ku fadeexaystaan arrintaasi la yaab kale ee haysata gabadhan. muddo 5 bilooda guurkeennii kadib caloosheedii waxay noqotay sida gabar 9 bilood siday uur oo kale oo dhali rabta isla haddaba. waxaan u tegay iyada waana ku qayliyay ilaa ay ka qiratay dembigeeda. waxayna ii sheegtay inta aana guursan ka hor inay xiriir la lahayd wiil dhalinyaro ah kadibna uu khiyaanay oo ka sinaystay sidaa awgeedna ay uurkan ku qaaday. markaas ayaa madaxu i xanuunay oo aan aad u xanaaqay. waan furi karay waana sii dayn karay waana fadeexaysan karay dadka oo idilna waa ay ila safan lahaayeen sababtoo ah waa gabar sinaysatay oo xumaan ku dhacday. laakiin sidaa ma aana yeelin. waxaan go'aansaday in aan qariyo oo aan xafido sirta noo dhaxaysa aniga iyo xaaskayga midaasi oo noo dhaxayn doonta ama ku dhex qarsanaan doonta aniga iyo rabbigayga subxaanahu wa ta'ala. gabadhii ma aanan fadeexaysan. waxaana iri isdeji. waxaan raadiyey umuliso. guriga ayaana ugu keenay habeenkii iyadoo dadku ay jiifaan si aan loo dareemin. ma doonin cidna inay ogaato in xaaskaygu ay caawo dhalayso. islaantii wax dhalinaysay markii aan keenay xaaskaygii ayay umulisay waxayna dhashay cunug yar. cunugii yar ayaan qaaday markii la gaaray xilligii salaada subax waxaana dhigay masaajidka agtiisa. kadibna dadka ayaa ku soo xoomay oo ku soo kulmay. waxaa ina dhaheen alla waa cunug yar. kadibna intaan soo booda baan idhi isiiya anigaa xanaanaynaya anigaa korinaya anigaa daryeelaya anigaa ilaalinaya anigaa korsanaya oo cunug ka dhiganaya. kadibna waan soo qaaday waxaana la soo aaday xaafadda. xaaskaygii sidaas ayay ku ilaalsanaatay. sidaas ayaana ku xafiday sirtii inoo dhaxaysay aniga iyo iyada. kadibna xaaskayga waxay noqotay mid ka mida dumarkii ugu wanaagsanaa ee magaalada. waxay ahayd mid aad u cibaado badan. waxay ahayd mid aad ugu dadaasha raaligelinta Allah subxaanahu wa ta'ala. waxay ahayd mid aad ii daryeesha oo aniga aad ii ilaalisa sababtoo ah agteeda ayaan ku yeeshay sharaf aad u weyn maadaama aan xafiday oo aan ilaaliyey bannaankana aan u soo saarin sirtii aniga iyo iyada noo dhaxaysay. sidaa daraaddeed bay aad ii daryeeshaa. aad baan agteeda ugu weynahay qalbigeedana boos weyn ayaan ku leeyahay. ilaa haddana sideedii ayay ii tahay oo waa mid u dhow Allah subxaanahu wa ta'ala anigana aad ii jecel.
iina xanaanaysa oo ii haysa owlaad qurux badan oo aad u wanaagsan tarbiyad wanaagsanna ay ku tarbiyeyso. waa taas qisadayda. sheekhii markuu qisadii maqlay wuxuu yidhi subxaana allah, ilaahay ayaa ceeb ka nasahan, ilaahay ayaa mahad iska leh, allaha aan hilmaamin wanaagga ay sameeyaan kuwa samafalayaasha ah. allah subxaanahu wa tacaala ayaad agtiisa darajo weyn ku yeelatay, waxayna sababtay middaasi in nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam uu janno kuugu bishaareeyo. haddaba ogow, nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaan riyada ku arkay, wuxuuna igu yidhi hebel ugu bishaaree inuu yahay rafiiqayga jannada. taasi waxaad ku gaartay waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo adiga idiin dhexeeya oo ah cibaadada wanaagsan iyo sirta aad xafiday iyo ceebta aad u qarisay walaashaada muslimadda ah ee qaladku ka dhacay. gabay cajiiba ayaa waxa uu ahaa: haddii qofku aanu xihan dhar alla ka cabsi ah, waa uu dhar la'yahay oo wuxuu la mid yahay sida qof qaawan, dharba ha xirnaadee. dharka qofka ugu wanaagsanna waa daacada iyo adeecidda rabbigii. khayrna ma leh qof ilaahay subxaanahu wa tacaala mar walba caasinaya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala amaradiisa ka soo horjeeda. haddaba maxaan ka faa'iidaysanaynaa qisadan? waxaan ka faa'iidaysanaynaa in ceebta loo qariyo qofka ama kurbada iyo murugada haysatood qof ka qaado, in ilaahay subxaanahu wa tacaala adigana kurbo ka mida kurbooyinka ugu dhibka badan ilaahay kaa qaadi doono adduun iyo aakhiraba. run ahaantii waa fadli iyo arrin aad u wanaagsan, aadna u qurux badan in aad qof aad markaa ugu baahan inaad xafiddo sirtiisa aad xafiddo. sirtuna waa waxyaabaha ugu waaweyn uguna muhiimsan ee laba qof dhexdooda ka samayn kara xiriiraadu adag. bal malayso qof maanta xumaato ku jiray oo dhibaato ku jiray, haddii aad ceebtiisa asturto, qofkaasi qalbigiisa maxaa kuu geli kara? muxuuse kaa malaysan karaa qofkaasi? ma isleedahay qofkaasi kalsoonida uu kuu qaado way baaba'aysaa? maya, run ahaantii ma baaba'ayso oo waxay noqon doontaa kalsooni aad u adag, kalsooni aan la loodi karin, kalsooni aan ku baaba'ayn dad kale hadal ay soo sheegeen ama wax lagaa yidhi ama kutirikuteen dusha lagaaga tuuray. qisadan waxaan ka faa'iidaysanaynaa oo kale in qofka haddii xumaato uu ku dhaco in loo qariyo oo loo asturo oo loo nasteexeeyo ay wanaagsan tahay. laakiin haddii ninkaasi gabadha uu furi lahaa, way ceeboobi lahayd, way fadeexoobi lahayd. waa dumar oo waad garanaysaa, waxaa laga yaabaa nolosheeda inay ku qamaari lahayd. nolosheeduna waa ay baabi'i lahayd oo waa ay hoogi lahayd, waxayna noqon lahayd nolol dulli iyo hoog u saaxiib ah, sababtoo ah noloshiiba waa ay ku fadeexowday. inta badanna bini'aadamku sida aan wada garanayno waxa ay ka cararaan ceebta. soomaalidu waxay tidhaahdaa adduunyana ceeb ka carar, aakhirana cadaab. oo ilaahay subxaanahu wa tacaala hana badbaadiye. adduunka waxa uu qofku jecel yahay in shaatigiisu u caddaado oo sharaftiisa wax dhaawaca aanu soo gaarin. waxyaabaha shanta ama daruuriyaadka ka mida islaamku ilaaliyana waxaa ka mida cirdiga ama sharafta, oo qofka sharaftiisa haddii meel looga dhaco waxay la mid tahay in qofkaasi si xun loo bahdilay oo noloshiisa la dilay oo kale. sidaa daraaddeed qofka muslimka ah waxaa loo baahan yahay qof haddii uu qalad ku arko in uu u naseexeeyo, tartiibna wax ugu sheego, una qariyo qaladkiisa, laakiin maahan inuu bannaanka la soo istaago oo fadeexaysto. ogowna hadda dadka fadeexaysato oo aad dembiyadooda iyo qaladaadkooda iyo kufkufkooda iyo weliba meelaha dadku ay ka simbirarxoodaan haddaad raadiso, ama hafawaadkooda ama qaladaadkooda ama weliba wax weliba oo ka dhaca aad raaraadiso oo aad daba raacraacdo, ilaahay subxaanahu wa tacaala adigana qalqigiisa hortooda ayuu kugu fadeexaynayaa, weliba aduu gurigaaga ku jira oo isleh qari wixii kaa dhacay ama fadeexadii aad doonaysay in aanay dadku indhahooda ku daawan. weligaa iska ilaali inaad fadeexayso qof walaalkaa muslima. ha fadeexaysan qofna, u qari ceebtiisa si ilaahay subxaanahu wa tacaala adigana kuugu qariyo ceebtaada. haddii naftaadu kuugu sheekayso oo ay ku tidhaahdo eeg oo dayday ceebta hebel, naftaada waxaad ku tidhaahdaa naf yahay aniguba waxaan leeyahay ceebo aad u fara badan, ee iska daa naf yahay dadkan aad ku mashquulayso. ogow qof walbaa ceeb ayuu leeyahay, adiguna ceeb ayaad leedahay. markaad qofka farta ku taagayso ogow oo fartaada ama gacmahaaga fiiri inta faree kugu soo jeedaa iyo farta qofka aad ku taagayso. hal farayaad ku taagaysaa, laakiin inta kale adiga dhankaaga ayay u soo jeedaan. bal tijaabi oo eeg si aad arrintaasi u xaqiiqsato. weligaa iska ilaali inaad dadka ceebahooda daba gasho, kuwagaa kugu filan. intaas ayaan barnaamijkeenna ku soo koobaynaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala ceebihiinna ha idiin asturo, maalinta qiyaamahana idinka dhigo kuwa ku kulma jannadii wanaagsanayd ee lagu dageegsanayey firaashkii quruxda badnaa ee aanu ilu hore u arag, dhegna aanu hore u maqal, qalbi bini'aadamna aan ku soo dhicin. alle subxaanahu wa tacaala dunuubteenna ha noo dhaafo, dembigeennana ha noo cafiyo.
kuma qasbanid in aad muuqaalkan dadka la wadaagto, laakiin haddii aad jeclaysato in aad walaalkaa la wadaagto farriintan waa mid aad inoo farax gelinaysa. haddii aadna dareensiiso in barnaamijkan aad ka heshay aadna uu kuu cajabiyey, taasina waa mid nagu abuuraysa farxad iyo weliba dhiirigelin iyo hore u sii socosho. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.